wiil reer sheekh muuse ka hadlayaa haybsooca hankaagu hadhaafo war hadhaafo hadhaafo haybsooco war hankaagu hadhaafo 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 war hankaagu hadhaafo haybsooco 2021 la gelaya ma garatay laakiin waxaan ka sheekeynaya haybsooca wuxuu yahay ila daawo saaxiib amba walaal meel kastoo joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo bilaa oo ah wiil reer somalilan ah oo soomaaliyeed gaar ahaan ku dhashay magaalada hargeysa gaar ahaan ku dhashay xaafadda isha boorame xaqiiqdaa ka sheekeynaya maanta waxaan ka hadlayaa haybsooca war haybsooco maxaa tahay war haybsoocow yaa noo kaa keenay war haybsoocow adeer maxaa tahay iyo waxaan hargeysa ka cabaadiyey dadkan degan qof waxaad arkaysaa darajo sare gaadhay oo hadhow toole markaa hadhow hoos u soo noqonaya kuma xisaabtamay maanta darajadu taagaya laakiin waxaa mar kasta ku kufulan haybsooca war anigu bulshadaasaan ka dhashay gaar ahaan reer sheekh muuse gaar ahaan maanta ano dadku waxyaala inagu xantaano waxay dhahaan timahay xiiraano kabtay tolaano anoo kab tulaya anoo kaboolaa haddaa meel bablikaa layga yeedhi lahaa meeshaana lay dhihi lahaa waxa weeyaan bal hadal ka dhiibo haddaba kaboolaan dhegeyso waxba soo barana dhegeyso weedhii bartaa looga baahanya baan ka dhiibi lahaa weedhii bartaa looga baahanya ka dhiibi lahaa ayaan ka dhiiban lahaa aniga ahaan bilaala marka soomaalida waxaa tiraa nin walba intuu cunu cidaamiya qof walbana intuu aqligiisu yahay buu hadlaa qof walba intuu garaadkiisa yahay buu hadlaa war anigu hargeysaa wax ku bartay ku barbaaray maasha allah alxamdulilah shaqana shaqooyin dee ummaddu ka shaqaysay caadigan ka shaqayn jiray marna tagsiilaan iska marna telefoonadaan samayn jiray aadan nookiya waxay baray khayr allaa siiyeen qaybtii waxa weeyaan telesoonta ka soo horjeeda nimo badan baan dee saaxiib ahayn aada khayr haw siiyo nimadaas aad bay gacan qabteen marka maan dareemayn aniga tusaale ahaan bilaal haddaan waxyaal badan ka sheekay wax haybsooc la yidhaha maan dareemayn haybsoocu dadkuwa jaahiliin waxbaa iskaga khaldan war haybsooca waa adigoo la diido meesha dadku fadhiya inaad soo fadhiisato war waa adigoo lagaa faano oo waxaad cunaysa lagula cuni waayo war waa adigoo meel lagula qayli waayo war waa adigoo xafiisyada qaar lagaa takooro ayaa haybsooc la yidhaha jaahilnimada iyo dulinimada iyo laangaabnimadu waxay keenaysaa waxyaalo badan baa iskaga kii khaldan war waxaa jira waxa weeyaan aad dadka qaar isku guurayn ayaa laga yaabaa inaad isku guudho adigu oo dee laga faanayo tusaale ahaan bulsho dhan waxaa lagu ragaadinayaa ee lagu eegayaa waa la fikiraa wuxuu ninkani iska korinayo wana iska koraysaa maxaa ka mid ah dee ninkani waa soomaaliya oo timaha inuu xeeru diiday adigii baa xiiray tusaale ahaan meel dhowba wax kaa siinay ninkani kabtii buu diiday inuu tolo adigii baa toshay ninkani wuxuu diiday inuu bir tumo adigii baa tuntay waraadaaba fiirso ninkani wuxuu diiday inaad waxa weeyaan inuu waxyaalo fara badan dee inuu business yar samaysto adigii baa samaystay ma garata markaa waxaynu rabnaa waxyaalaha radaadiga keenaya amba hoos in aad u noqoto keenaya waa inaad ka fikirta waxyaalahaas iminka anigu bilaal baan ahay de waan diiday kab inaan tolo waayo ina yaroo keyrkayoo reer somalilan aad diiday dee timaha waan diiday inaan xiiro ina yaroo reer somalilan diiday ayaa diiday waayo markaan arkay dhalinyarada kubadda la ciyaarayo hankooga waxyaalahay jecel yihiin dhalinyarada madrasta la dhiganayo waxyaalahay iga sheekeynayaan xaafadooda iyo dadkoogu waxay qabtaan midbaa wuxuu dhahay aabbahay waa tagsiile midbaa wuxuu dhahayaa hooyadii waxaan bay qabataa mid nacam waxaa laga fikiraa ciyaalnimada dhalinyarada marka aniguna waxaan ku fikiri jiray markaan yaraa inaanan kaboolo noqon shaqadu ceeb maaha laakiin nin dee soomaaliya diiday dee adiguna diid ilaahay risqigu ballaadhiye maaha inaad meel ku dhegtown
marka waxyaalaha lagu waxa weeyaan haystaa waxyaalahaas oo kale dee runtaynu isku sheegaynaa laakiin laguguma haysto noloshaada iyo jiritaankaaga maanta ninka dhahayo fooq baan hargeysa ka dhisanayaa magaalada hargeysaan fooq ka dhisanayaa ninka dhahayo oo waa lay diidaya waa ninkii maanta haddaan hargeysa imaado un wax haysto dee dahabshiil baan sheer la gelaya barow bar baan iibsanayaa waxa weeyaan gargaar iyo barow bar baan iibsanayaa dhakhaatiirta cabdiraxmaan barow bar baan iibsanayaa madaxtooyada agteeda waayo waxaa ii haya businesskayga ay haya waa inaan anigu wax urursadaa waa inaan anigu wax dhigtaa hadhow toole anigu markaan waxa weeyaan wax urursado hanti yeeshan hargeysa badh oo dhan iibsaday nin reer hargeysaane dee haybadaydii baa kor u kacaysa ciddaan ka soo jeeday baa kor u kacaysa qabiilkaygii iyo dadnimadeydii baa kor u kacaya laakiin markaan meel la soo fadhiisto maalin walba waan la haybsoocaan de maxaa laynaga daaya waxaan horta marka hore laynaga daynaya macnaheega ma karata jaahilnimaynayna qaadina qaar ba waxay ku leeyihiin aqoon baan dhiganay jaamacadaan ka soo baxnay haddana wuxuu ka sheekeynayaa haybsooc qaar baa wuxuu wataa kitaabka ilaahay haddana wuxuu ka sheekeynayaa haybsooc war horta marka hore waxaa lagugu faquuqaya lagugu haysta ma taqaana haddaad jiingad leedahay jiingadii baad dhaafi lahaad oo daar baad ka dhigi lahaad haddaad buul gashana buulkii baad weli ku jirta run baan kuu sheegaya haddaad meherad yar leedahay tii baad ballaadhin lahaad haddaad han leedahayna hankaagii baad ballaadhin lahaad waxaa marka hore lagugu haysto adiga haddaa lagu baado oo waxa weye dhakhaatiirta cilmi nafsiga loo yeedha adaa lagaa helaya 9 kabaada lagaa helaya ubaddani haddaad hanti leedahay ood maal leedahay ood qurux leedahay ood sharaf leedahay ood maraakiibta iyo waxaa degaya aad wax kala soo degayso maxaa lagugu haybsoocaya talabadaada waxaan iska dhaadhiciyey talabaad qofku markuu waxaan iska dhaadhiciyo iyo marka waxa qofka loo yaqaano markuu iska dhaadhiciyaa xun waxaad iska dhaadhicisay lagaa tiro badany lagaama tiro badne waa lagaa taran badan weliba lagaama taran badne waa lagaa wax tar badan waa lagaa maal badan waa lagaa maskax maal badan waa lagaa aqoon badan waa lagaa socod badan waa lagaa dhaqdhaqaaq badan waxyaalahaasaa ku koriyey oo ummadda kaa reebay markaa cid ku haybsoocaysa iyo cid kaa tiro badan iyo cid hoos kuu dhigaysa iyo cid ku haysata dee runtii ma jirto maanta wasiir baad noqonaysaa xildhibaan baad noqonaysaa dhalinyaradii baad arkaysaa maanta tikada berbere ka shaqeynaya dhalinyaradii maanta wasaaradihii bay ku jiraan meelo badan bay ku jiraan maxay ku galeen markaa haddaa la haybsoocayo maxaa geliyey haddaa laleeyahay hooyooyinkood iyo aabayaashood baa midga ahaa oo laangaabin bay haayeen maxaa keenay maanta in dhalinyarada reer somalilan gacan inay siiyaan maxaa keenay dhalinyarada reer somalilan maanta inay soo dhaweeyaan waxaanaad ku fikiraysaan iska daaya waxa xun adiguba waad necebtahay waxa xun adiguba waad necebtahay saaxib aad baa ugu necebtay run baa kuu sheegaya waxyaala dhaqana iska jira wixii dhaqana waa dhaqan wixii aan dhaqan ahayna dhaqan maaha markaa ilma adeerayaal maanta dhalinyar haddaan nahay oo aynu doonayno horumar inaynu gaadhno oynu rabno inaynu guulaysano oynu rabno inaynu sharaf gelino aynu ka leexano waddadii khaldanayd ee weli alaan qaarba dad badan ay wadaan oo ah haybsooc haybsooca laftigiisaba aqoonti maba garanayaanba wallaahi inayna garanayn oo bilaahina dadka qaarkood garanayn ma garatay war maanta anigu talyaanigaa joogaa skuuraj baa ka shaqeeya habeen oo dhan baan soo jeedaa markaan intaa yar cunayo ayaan bartan idiin soo fadhiistaa intaa idiga gaadhsiiya rag badan oo iga jaanis badan baa jira maanta meel kasta joogo oo mukiibsaha ugu socdo oo guryaha iska dhex fadhiya oo awoodi kari la maanta dadkooga inay wax u sheegaan marka anigu waxaan u sheegaya qof kastoo aaminsan haybsooca adeer adigaa laankaaba adigaa ummadda ka hadhay adigaa waxa weeyaan wax dhintaya run baan kuu sheegaya war adduunkan waxa laysku dhaafay waa dhaqaale iyo maskax weyn war adduunyadan labadaas baa ka shaqeeya war inaad maskax yeelato iyo inaad dhaqaale yeelato ku dadaal saad u yeelan lahay war adduunyadan waa one chance one goal war adduunyadan waa sidaas war adduunyadan waa taa weeyaan marka ayaan lagu habsaamin wax madhalayso 45 sano socday iyo wixii ka sii horeeyay oo ah haybsooc iyo wax laga tiro badiyay haddaa lagaa tiro badan yahay waxyaalo badan baan baabuur cadcad baad wadataan meelo badan baad gashaan wasaaradahaad gashaan dhalinyarta iyo dhalaanka waxaan lagu korinayaa laga daayo oo dhalinyarta iyo waxaan dhalaanka lagu korinayaa laga daayo ilaahay subxaana wa tacaala ha laga dhigo talabaad warbarta haybsoocu waa maxay haybsooca macnihiisa garanaysaan shahaado dhaadheer baad iska wadataan oo aqoon baad wada sheeganaysaan haddana waxaad u dhaqantaan sida juhaalada iyo jaahiliinta
war ubaxa soo kacaya iyo dhalinyarada soo kacaya iyo maanta dadkan wax bartay ee maanta meel walba ku jira war ha laga daaya af soomaaliga xun iyo hadalka war dhalinyarada yaan la niyad jabinina maanta war maanta dhalinyartu waa dagaalamayaan qaar social markay ka dagaalamayaan qaar iyagaa laga fadhiisan lahay iyagii baa dadka dhuunta bartaa u galay oo gobonimadooda iyo sharaftooda ka sheekeynaya oo faanaya oo hadlaya war dadku maanta way bisil yihiin war noloshu shalay toolo maaha war dulinimo lama qaatee gobonimaa la qaatay war gunnimo laguma dhinto gobonimaa lagu dhinta war waxa weeyaan wuxuu ilaahay kuu qoray baa qoran laakiin adigu waxay dadku ku ilaahay ku leeyihin waxba kaama gelin laakiin adigu waxaad isleedaha xun ummaddu waxay ku dhahayso ceeb maaha laakiin waxa xun adigu waxaad isleedahay adigu haddaad isleedahay waa lagaa jira baday waad hooseysaa taasaa xun horumarna gaari maysid warna guulna gaari maysid noloshaada intaad nooshahayna waxaad noqonaysaa qof liita oo dhintaad noqonaysaa laakiin ilma adeerayaalow idinku iska daaya cid walbaan la hadlaya waa jaranay dad kastoo haybsoocan hoos imaadaan la hadlaya iyo waxaan wataa idinku ha isdilina oo odayaashiinii baa isjoogtay oo isku dilay waxa weeyaan magacani wax ka xun idinkuna ha isku dilina waa laydiga tiro baday waa been weyn waa laynaga tamar badan yahay waa laynaga dheereeyey intaynu meel kale ku habsaanay ma garatay talabaad bulshadu markay fiicnaato bulshadu wax barato bulshadu waxyaalo badan isbedesho sida maanta aynu wax badan isku bedelno dhalinyaro badan oo wax bartay oo maanta beelaha la helayo oo ilaahay khayr ha siiya sida fiican wax u bartay waxaa imanaysa hadhow toole inay waxa weeyaan sameeyaan deegaan iyo wax kasta iyo ma garatay marka aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaamaya anigoo bilo ma garatay waxaan leeyahay soomaaliya aad baa idin salaamaya ummadda haybsoocan waxaan leeyahay nin niga daayda haybsoo wax yidhaha ma jireen ciyaarta naga dhaafaya yaa hankiinu ha dhaafo haybsoo hankaagu ha dhaafo